waayahay waa mahadsantahay midaan waxaan rabaa xiriirka wadamada kale dowladdaadu ay la leedahay inaan su-aal kale kaasii weydiiyo waxaa jirta hadalahayn ah madaxweyne farmaajo dowladaha dariska uu soo kala dhaweystay Itoobiya oo ahayd Soomaalida ay u arkayeen cadawga koowaad ee Soomaaliya ay leedahay madaxweyne farmaajo xiriir dhow ayuu la yeeshay Kenya wuu fogeeyay Itoobiya iyo Eritreana xulufo ka dhigtay arintaas maxaa kaga jawaabaysaa mudane arintaasi runtii waa arin dhab ah waa dhab weeye maxaa yeelay siyaasadda Itoobiya isbedel ka dhacay awal siyaasadda Itoobiya siyaasadda Kenya waxay ahayd hal siyaasad oo ku wajahan Soomaaliya waliba siyaasaddaas aan dhihi karo dibindaabyada dalkeena aan oran karo inkastoo aan ku ammaanayo ana uga mahadcelinayo qaybta ay ka qaateen dadaalada la dagaalanka argagixisada maxaa yeelay taas nafteeda wadantoodii weeye maxaa yeelay haddaysan yeelin argagixisadu waxay u tallaabayaan xuduud dhankoodii aadayaan marka taas isku dan ayaan ka nahay waxa weeye Itoobiya siyaasadeedu waa isbedeshay annagu awalba waxaan raadinaynaa fargelin Soomaaliya laga daayo waana ognahay Itoobiya sidii ay fargelin ugu haysay Soomaaliya TPLF groupkii TPLF ka oo 30 sano ku dhawaad haysay Itoobiya runtii sida ay iyo dhibaatooyinka ay ka geysteen Soomaaliya isbedel yaa ka dhacay isbedelkaasi wuxuu keenay inaan isfahmno oo aan isku fahmno inaan isfargelin oo la ixtiraamo haddii wax la wada qabsanayana wax la wada qabsado iyadoo la yahay daris su wanaagsan laakiin aanan Soomaali sidii hore iyo dhaqankii hore ee TPLF ka lahayd aanan loola dhaqmin taasna waa aqbaleen sidii uu u yimid prime minister kan cusub Ethiopiana runtii waa fulay balantii anna maalintan imid oo la doortay oo aan safarada ku kala bixi dowladaha dariska intaas way waxaan kala hadlayay waana dhibteen ummadeena waxa weeye faragelin badan aad ku soo hayseen muddo dheer naga daayay faragelintiina gurihiina iyo dalalkiina jooga anaga dhexdeena iyo hawlaheena iyo siyaasadeena gudaha faraha kala baxa waana documented weeye mar alla meel kasta aan tagana saas yaan kala ahaa wax anigu aan qarsanay ama si gaar ah oo qarsoodi aan ula hadlay ma ahayn waxay si public ah oo press conference-yada aan wada qabanayni ay tilmaamayso in faragelinta ay naga joojiyaan ayaheena anagu aan ka tashano dhaqankii hore ee ula dhaqmayeen Soomaaliya ay wax ka bedelaan taas Itoobiya waa fulisay haddii fulisayna khasb waxa weeye annagana inaan reciprocal inaan ku noqono oo aan sidaas oo kale aan uga falcelino meesha Kenya ay weli damci uu ku jiro intii sano aan burbursanayn dhaqankeedii ay nagula dhaqmaysay inay ay wado ilaa ay nagu qabsato bad annagu aan leenahay ay aaminsan tahay inay maxaan ku raahdaa ay maxaan ku raahdaa naga qaadan karto ama ay si kale ay u maamuli karto marka farqiga u dhaxeeya waa saas way ma aniga wax aan keenay waa isbedel iyaga ku dhacay waayahay madaxweyne waa maasantahay waxaan rabaa qaybihii dambe ee wareysigan soo gaaray madaxweyne maxamed xantaada ma moogid hal sano mucaaradka dalka waxay kugu tilmaamayaan inaad tahay madaxweyne dictator ah jecel xukunka aan rabin in kursiga uu ka dago iska aaminsan tahay arintaas haddii maya ay tahay maxaa sahlay in ay faafto hadalayntaas waxa weeye runtii waa nasiib darro waxaa loo baahan yahay dadka in loo fasiro macnaha rasmiga ah waxa dictator uu yahay adiga aan su'aasha kugu soo celiyo ma jiraa nin siyaasi ah oo dowladdan u xiran ma jiraa nin media ah oo dowladdan u xiran ma jiraa waxa weeye dadku xor ma yihiin oo siyaasiyiintu si rabaan ma hadlaan dhaqaalehen dhaqaale xor ah ma yahay ma waxaa jira dhaqaale dad gaar u gaar ah oo aanan laga soo geli karin waxa weeye anaa kaaga jawaabaye waa maya ma jiro
marka intaas waxay caddaynaysaa marka macnahay u yaqaanaan dictator waa wax kale marka dadka sheegaya hadday u yaqaanaan dictator in la dhiso dowlad haddii u yaqaanaan dictator in ciidan la dhiso haddii dictator u yaqaanaan xoolaha ummadda in loo ammaanada loo hayo oo aanan hantida dowladda aan suuqa la geenin la xaraashin hadday u yaqaanaan dictator ma aha qofkaas dictator waxa weeye qofka awoodda maxaa la yidhahda ku takrifala oo caburiya dadka oo xirxira dadka oo dadka dhiba ma garat oo dhaqaalahooda aruursada soo ma garan marka waxaa ka xun fasirkaa ka xun marka magac kale waa inay ii raadiyaan aan kaas ahayn waayahay waa mahadsan tahay waxaan rabaa kiiska badda madaxweyne waa soo hadal qaaday inaan su-aalkaa weydiiyo shacabka soomaaliyeed dhegtaa u taagan dhegaysiga u dambeeyey ee foolka ahaa inkastoo Kenya ay ka maqnaayeen haddana shacabka soomaaliyeed aad bay ugu dhegtaagayaan maxaad ugu iftiiminaysaa rajo inteesa la eg ayay dowladda federaalka ka qabtaa inay kaga guulaysato dacwaddaas Kenya ee sheeganayso badda Soomaaliya ay ku haysato kayskan runtii wuxuu marayaa meeshii ugu dambeysay oo aan ka sugayno maxkamadda caalamiga ah inay soo saarto go-aankeeda insha allah waxaan rajaynayaa go-aankaas inuu noqdo go-aan anagu aan leenahay dhulkaas aan leenahay baddaas aan leenahay waan aaminsanahay annagaa iska leh caruurteena iska leh caruurtaan awaah u nahaa iska leh mustaqbalka yaa iska leh mustaqbalkooda iska leh marka sida ay u dhigeen looyaradeenna oo dee qof walba arkayey oo si u diyaarsanayeena oo sidee ay maxaa la yidhaahdaa ay u present gareeyeen kayska ay kayska u soo jeediyeen sida qurxoon hadday noqoto taariikhi sida taariikhdu labada dal iyo soohintooda ay ahayd juqraafiga siduu ahaa siday u soo bandhigeen waxaan aaminsanahay insha allah kayskani inuu sida aan kulligood aaminsanahay dhulkaas anagu inaan leenahay maxkamadduna saas ay u arki doonto insha allah rajo fiican oo aad u fiican ka qabnaa waayahay waa gabagabeynaa mudane waxaan rabaa kiiska dacwadda badda marka laga soo tago waxaa jira xadgudubyo kale oo Kenya gaar ahaan ciidamadeeda ay ka geystaan xadka Soomaaliya ay la leedahay waxaa jira in ciidamada Kenya ay ku soo xadgudbaan dhulka Soomaaliya ganacsiyo fara badan oo dhul Soomaaliya ku yaal ay burburiyaan tusaaladan soo qaadano shirkadda Hormuud oo kamid ah shirkadihii ama shirkadda ugu weyn ee isgaarsiinta dalka ka jirta dhibaato fara badan dalkan kaga soo qayb qaadatay inta waradeedii xarumaheedii la burburiyo arintaas dawladda ma la socotaa mudane waana si darro waxyaabahaasi waxyaabaha aan aaminsanahay xadgudubka Kenya ay ku samayso qaranka Soomaaliya ay ku soo xadgudubto soodinteenna iyo dhulkeenna ay burburiso sidaad sheegtay taawaradaas ay xoolo dad ay leeyihiin shacab aan waxba galabsan ya la duqeeyo oo dhibaatooyin loo geysto waxyaabo badan oo ay ka samayso xadgudub hawada ah ay soo gasho hadda ka horna international monitoring group naftigooda waxyaabo badan ay ku eedeeyeen Kenya oo runtii gudaha Soomaaliya ka samaysay marka waxyaabahaas oo dhan runtii waa u sheegnay waana kaga dacwoonay hay-adaha caalamiga ah xadgudubkaas oo dhan waxaan rajaynaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa in dhibaatooyinkaas waayahay gabagabadii 4 sano ee madaxweyne xilka aad haysay iyo hadda oo la taagan yahay farqi noocee Soomaaliya u dhaxeeya maxaa isku tilmaami lahayd farqiga u dhaxeeya waxaan aaminsanahay isbedel weyn inuu jiro wacyigelinta dadka sida fahamka dadku u fahamsan yihiin dowladnimada wacyigelin badan ee ka qabaan qabiilka wuxuu yahay xumaantiisa dowladdaani dadku inay ku taageersanayn qabiil iyo kooxaysi maxaa yeelay dowladihii tan ka horreysay waxaa lagu tilmaamayey urur diimeedyo iyo wax la mid ah iyo kooxaysi lagu tilmaamayey dowladdaani waxaan aaminsanahay in aanan lagu tilmaamin musuq maasuq inaan lagu tilmaamin
qaraabo kiil iyo eex iyo qabyaalad aanan iyo cadaalad darro aanan lagu tilmaamin intaas waxa weeye waa horumar la gaaray oo ah madaxdu inay iska ilaaliyaan ammaanadii loo dhiibay siday tahay inay u hayaan wax alla wixii xadgudub ah oo shacabkana inay iska ilaaliyaan marka horumar la taaban karo dhanka dhaqaalaha waa ka gaarnay oo dee caalamka runtii sheegay World Bankiga iyo IMF-ka labadu waa sheegeen qaabka aan u maamulno miisaaniyadeenna qaabka aan u maamulno sidaan u kharash gareyno dakhligeena sidaan u kordhinay canshuuraadkeena sidaan kor ugu qaadnay sidaan mushaaraadka u bixinno dowlad wanaagga aan ka shaqeyno waxyaabo badan oo runtii lagu tilmaami karo dhanka dhaqaalaha isbedel inaan uga sameeyo aan ku sameynay oo reform la taaban kara ah security-ga dhanka amnigana sidaas oo kale inaan dib u dhisayno ciidanka fari kama qodna runtii waqti badan ayaa loo baahan yahay in ciidan xoog leh oo tayo leh oo difaacan kara xuduudihiisa badihiisa iyo cirkaba hawada difaacan kara in la helo waqti u baahan tahay laakiin bilaaw fiican in ciidanka dhismihiisa uu fiican yahay ciidan tayo leh oo tababar fiican leh oo qalab fiican leh runtii inay hadda joogaan oo difaaci kara sharafka ummadnimo iyo qarannimo Soomaali ee difaaci kara maxaa la yiraahdaa waana muujiyeen runtii tusaalooyinkaas oo waxa ugu dambeeyay hadda Owdhegle iyo Barra ugu dambeeyay oo ay ka soo hooyeen guulo la taaban karo intii dhimatay Allahu naxariisto inta dhaawacan Ilaahay degdeg hawa kiciyo waxa weeye calaamadaha muujinaya annagoo aysan AMISOM nala socon in aan goobaheena difaacan karno aan kaga adkaan karno cadowga waana waxaan hore u dhicin aan hore u dhici jirin weeye marka dhismihii waa socdaa ciidankuna ma aha ciidan qof leeyahay iyo xisbi leeyahay ma waa ciidan Soomaaliyeed oo astaan qaran ah waxay u shaqeeyaan markaas dawladda markaas joogta maxaan ku raahdaa waajibaadkooda wax u fushanayaan awaamirta markaas taala oo lagu badbaadinayo dalka lagu badbaadinayo ama dadka lagu badbaadinayo ama diinta lagu ilaalinayo runtii waajibaadkaasna waa guteen oo waa la arkaa wanaagooda iyo tayadooda iyo shaqadooda iyo asluubtooda waa la arkaa waana sii xoojinayna insha Allah